Bismillahirrahmanirrahiim. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa channelka Xogta Media. Waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diradda ku saari doono saddex arrimood oo ku saabsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA iyo garoonka Aadan Cadde ee magaalada caasimadda Muqdisho. Haddaba muddooyinkii ama maalmihii aan ka soo gudubnay waxaa taagnaa dhacdooyin la xiriira NISA iyo sidoo kaleba garoonka Aadan Cadde. warar ayaan daawadayaal idinkaga warbixintan ayaana ku soo koobi doonaa muxuu yahay doorka Cabdullaahi Maxamed Nuur wasiirka amniga ee kaga wajahan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA kadib markii ay sameysay amar diido ku saabsan in ay ka baxdo garoonka Aadan Cabdulle Usmaan Aadan Cadde. falaqayn ayaa daawadayaal ku sameyn doonaa warbixinteena ayaana idinkugu soo gudbi doonaa xogo macluumaadkaasi la xiriira hayeeshee inta aanan guda gelin waxaan daawaday ka dalbanaya oo ka codsanayana muuqaalkan like saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saaraya channelka oo furanaya gambalaalka si durbadii baad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag markaana daawaday waxaad ku soo dhawaataa warbixinteena tan iyo markii uu horaantii bishan wasiirka amniga ee xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya ku amray taliska hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA in ay ciidamadooda ka saaraan garoonka diyaaradaha caalamiga ee Aadan Cabdulle Usmaan Aadan Cadde. waxaa soo baxay su'aalo la isku weydiinayo arrimahaasi. hadalhaynta shacabka ayaa u badneed saameynta ay NISA ku leeyihiin garoonka iyo waxa ay yihiin shaqooyinka ay ka hayaan marka laga yimaado eedeymaha faragelinta siyaasadda ee sida joogtada ah loogu jeediyo NISA. waxaa inta badan la isku raacsan yahay in ay hayaan howlo sugista amniga ah oo muhiim u ah goobaha waaweyn ee dawladda sida garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cabdulle Usmaan Aadan Cadde. waxaan eegi doonaa saddex qodob oo sharaxaad ka bixinaya su'aalaha ugu waaweyn ee ku gadaaman hay'adda NISA iyo garoonka Aadan Cadde ee magaalada caasimadda Muqdisho. qodobka koowaad, xafiiska NISA ee garoonka. sida caadiga ah safar hay'adood oo aysan ku jirin sirdoonka ayaa shaqo ku leh arrimaha ugu waaweyn ee ku saabsan garoonka diyaaradaha kuwaas oo kala ah hay'adda duulista hawada, laanta socdaalka, booliiska iyo laanta canshuuraha. muddo dhowr sano ahba amniga garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho waxa uu ku tiirsanaa hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA taas oo dabcan la xiriirta duruufaha amniga u gaarka ah ee Soomaaliya oo u baahan wax ka badan howlaha caadiga ah ee booliiska. NISA ayaa xafiis ku leh garoonka gudihiisa kaas oo ujeedadiisu ay markii ugu horeysay ahayd in loo adeegsado howlaha amniga ee halkaasi ka wado hay'addu sida uu qabo Xuseen Macalin oo mar ahaa la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha mudxiliidkiisu u dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. hase yeeshee warar soo baxay ayaa sheegayay in saameynta NISA ee garoonka ay noqotay mid ka talowsan howlaha amniga. arrimahaasi ayaa la rumaysan yahay in ay ugu dambeyn sabab noqdeen go'aankii uu wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur ugu amray taliyaha NISA ee ku meel gaarka ah Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Faray inuu ciidamada NISA gebi ahaanba ka saaro garoonka Aadan Cabdulle Usmaan Aadan Cadde. wasiirka amniga ee xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa markii dambe sheegay in amarkaasi uusan qusaynin ciidanka hay'adda nabad sugidda ee ka tirsan ee ilaaliya baraha kontaroolka ee laga galo garoonka. Xuseen Macalin Maxamuud oo ah la taliyihii hore ee dhinaca amniga u qaabilsanaa madaxweynaha Soomaaliya ee mudxiliidkiisu dhamaaday ayaa sheegay in aysan qasab ahayn joogitaanka NISA ee garoonka amnigiisana ay tahay shaqada booliiska balse xafiiskooda uu ahaan karo mid ku yaala meesha oo qaabilsan shaqooyinkii u cayinaa sirdoonka. NISA xafiis way ku leeyihiin garoonka xitaa haddii ay xilka wareejiyaan. xafiisku lahaanshuhu waa wax meesha ku jiri kara. waa sax in booliiska oo shaqada ku jira ay iyaguna kaabe u ahaadaan oo ay ka caawiyaan wixii xog ah oo ay hayaan ayuu yiri Xuseen Macalin. qodobka labaad, goob gaar ah oo ay ka baxaan madaxda NISA iyo dadka ay iyada ka warhayso. dhowr sanaba waxaa jiray warar liisla dhexmaro oo sheegayay in NISA ay garoonka diyaaradaha ku leeyihiin terminal ama qayb isticmaal oo iyaga u gaar ah cid kalena aysan u adeegsanin soo gelitaanka iyo sidoo kaleba ka bixitaanka.
balse la taliyihii hore ee amniga u qaabilsanaa madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa sheegay in aysan jirin waxyaabo si rasmi ah looga warhayo oo ku saabsan arrintaasi. qodobka saddexaad, maxay tahay danta ugu jirta Nisa in ay garoonka joogaan? Xuseen Macalin ayaa sheegay in xilli horeba uu qorshuhu ahaa sidii ciidanka booliiska loogu wareejin lahaa amniga garoonka mar walba in laga maarmo ayay ahayd. xilligii aan anigu shaqaynayay waxaan u arkayay sababta ay weli u joogeen in ay ahayd go'aan ku xirnaa madaxda Nisa oo diidaya in ay gacantooda ka bixiyaan awood ay haysteen. waxa uu carabka ku dhuftay waxyaabaha ugu muhiimsan ee keeni kara in Nisa ay aad u daneynayso gacan ku haynta maamulka garoonka Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde. garoonkan waa meesha ugu xasaasisan ee dalku uu leeyahay. waxa uu xarun u yahay safaaradihii ajaanibta oo dhan. waxa uu xarun u yahay saldhigga Amisom. waa meesha dalka laga soo galo oo diyaaradaha ugu waaweyn ee caalamiga ah ay imaadaan. waa meel doorashooyinkii lagu qabanayo oo ilaa madaxweynayaasha lagu doorto. waa meel dadka siyaasadda isdiidan kala aaminsan ay ka dhoofaan kana soo degaan oo la rabo in lagu caburiyo ama lagu fududeysto. waa meel haddii aad yeelato awood aan xad lahayn aad soo degsan karto waxa aad rabto, hadday noqon lahayd waxyaabo sharci darro ah ama lacagaha doorashooyinka iyo wax walba, ayuu yidhi Xuseen Macalin Maxamuud. aragtiyo kala duwan ayaa la hadal haya oo ku saabsan danta ay Nisa u joogto garoonka. dadka qaarna waxayba farta ku fiiqayaan in ay jiraan sababo siyaasadeed. bishii Julaay ama Luulyo ee sanadkii hore 2021 ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xilkii ka qaaday Cabdullaahi Kulane oo ahaa agaasimihii shaqaalaha ee Nisa kadib markii siyaasiyiin ay sheegeen in laga celiyay in ay ka dhoofaan garoonka Aadan Cadde. waxaana dadkaasi ka mid ah Cusmaan Nuur Macalimo oo mar ahaa gudoomiyaha gobolka Gado. waxaa jiray warar ka hadlayay in garoonka la dhigay liis dad aanan la doonaynin in ay ka dhoofaan garoonka sababo siyaasadeed awgeed. warbixintii daawadayaal halkaas ayaan ku hakinayaa. haddii aad daawatay muuqaalkan like inoo saar, subscribe inoo saar channelka Furaga Mareelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. tan iyo warbixintan mid la mid ah inta dib isugu kulmi doonana nabadgelyo.